ربي حن قلبي لبيت ربي أطوف وأسعى. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلمة waxay ku saabsan tahay axkaamta cumrada iyo fadligeeda si ay uga faa'iideystaan walaalaha doonaya in ay soo gutaan cumrada. cumradu sideeda waa siyaara ilaa beyt ilaahi, waa in la soo booqdo oo cibaado loogu soo booqdo beytka ilaahay. xukunkeeduna sida ay jumhuurul culamaa ay qabaan waa waajib, qaarkoodna culimmadu waxay dhaheen waa sunna mu'akkada ayay dhaheen. marka arkaan bay leedahay, waxay kaloo leedahay waajibaad, waxay kaloo leedahay sunan bay leedahay. arkaanteedu waa arkaanta xajka keliya waxa aan ku jirin wuquuful carafa, laakiin inta kale taqriiban xajka ay iskala mid yihiin. oo arkaanteedu waa afar weeye sida raajixa ah. waa rukniga u horeeya waxa weeye anniya, in la soo niyeysto. rukniga labaadna waxa weeye at-tawaaf, tawaafu beyt illaahi alxaraam. kan saddexaadna waxa weeye as-sacyu bayna safa walmarwa. kan ugu dambeeyana waxa weeye alxalqu aw alqasru, in timaha la xiirto ama la gaabiyo. ragga dumarkan way gaabinayaan. kaa dambe culimmada qaar baa leh maahan waa waajib, laakiin rukni maahan. rukni iyo waajib waxay ku kala gedisan yihiin. ruknigu waa sida salaadoo kale waa naqaanaa iyo xajka iyo cibaadaadka. rukniga haddaan lala imaan cibaadadaas ma ansixin, waa in la soo celiyo. laakiin waajibka sida salaada haddaa taxayaadka dhexe ka tagtid, haddii culimmada qaar waxay qabaan xalqiga iyo waajibaadka kale qofka hadduu ka tago dhiig ayuu ku kabaya ayay aaminsan yihiin. marka afartaa rukni bay leeyihiin, laakiin waxaa jira waxyaalo qabla intaadan xiran sunno ah in la sameeyo ay tahay, iyo waxyaalo ay sunno tahay inta lagu jiro in la sameeyo ay tahay. intaan cumrada la samayn oo qofka cumrada uusan xiran uusan bilaabin, waxaa sunno ah oo wanaagsan in hadduu alla kuu roon yahay qofka muslimka ee raba inuu soo cumraysto, ilaahay inuu u toobad keeno, kadib si qalbigiisu uu u noqdo qalbi saafiya oo ilaahay subxaanahu watacaala uu cibaadadiisa uga aqbalo. kadib waxaa loo baahan yahay inuu cidiyaha iska jaro, timaha hoose iska jaro, qubaysto, isnadiifiyo. ragga waxaa loo ogolaya inay ismariyaan maxaa la tiib ama barafuun iyo cudur ismariyaan. dumarka iyaga looma ogola hadday gurigooda meel ka baxsan ay yihiin. intaa markay sameeyaan oo isnadiifiyaan ayay waxay xiranayaan. raggu wax tolan oo dhan way iska daynayaan. labadii go' caddaa bay xiranayaan. dumarkuna dharkii ay doonaan bay xiranayaan. dhar alla dharkii doonaan, khasab maahan xataa inay xijaab cad xirtaan, dharkii doonaan bay xiranayaan. waxyaale waxaa markaas kadib waxaa loo baahan yahay qofku inuu xirto oo niyeysto. niyada ayaa waajiba, laakiin afka in looga dhawaaqo sunanka ayay ka mid tahay. oo qofku uu dhaho labayk allahuma cumra ama maaragtay allahuma labayka cumra, inuu qofku afka ka dhaho waa sunna. laakiin midda rukniga ah waa anniya, laanna nabigu wuxuu yidhi innama alacmaalu binniyaat. hadduu qofku uu xirto salaad fardi ah gadaasheeda uu xirto, ama salaad sunna uu tukada gadaasheeda uu xirto, waa fiican tahay. laakiin khasab ma ahan. dadka qaarkood waxay u qabaan xirashadu inay laba rakaco sunna ay leedahay, ma laha. laakiin hadduu masjid yimaado salaadii faralkaadi uu ku tukado faral kadib uu xirto, ama masjid yimaado taxid masjid ku tukado marka kadib uu xirto, waa shay wanaagsan weeye. nabigu markii uu ku tukayay dalxulayfa ayuu xirtay sala allahu calayhi wasalam. markaa kadib rukniga koowaad ayaa kuu bilowday. muxrim baa tahay. waxaa xaaraan kaa ah waxyaalo badan oo markii hore xalaal kuu ah. marka qofku uu xirto waxyaale waxaa jira marka muxaramaad la yidhaahdo, oo ragga iyo dumarku qaarna waa wadaagaan, qaarna raggay gooni u yihiin, qaarna dumarka. ragga iyo dumarku waxay wadaagaan. marka oo ay xirtaan looma ogola inay cidiyaha iska jaraan ama timaha iska jaraan, ama se wax barafuun leh ay taabtaan, ama se hadduu alla kuu roon yahay guurkii iyo nikaaxi looma ogola. bal xataa inuu xodxodasho iyo maaragtay guurkii wixii ka horreeyay looma ogola. ragga waxaa usii dheer aan loo ogolayn in ay madaxa ay daboolaan ama dhar tolan ay xirtaan. dumarka iyaga waxaan loo ogolayn
oo gooni u ah maaragtay in ay gashadaan galofska waxa la yiraahdo qafaaseenka la yiraahdo ama se niqaab ay xirtaan. niqaabku waa ka gedsan yahay kan madaxa laga rogo oo maaragtay la yiraahdo maaragtay kan weyn ma ahan, waa mid indhaha kaliya loo tolo marka kaas looma ogola maaragtay. waxay kaloo ay ka wada siman rag iyo dumarka mamnuuc ka in ay ugaarsadaan ugaarta bariga looma ogola tay aayada quraanka suuratu maa'ida ku soo aroortay. marka kadib waxay bilaabayaan dadku talbiya ayay bilaabayaan. dabcan meesha laga soo xiranayo waajibaadka ayay kamid tahay, qofku waa inuu ka soo xirto miiqaadka. miiqaadku waxa weeye meelo nebigu sallallahu alayhi wasallam uu ishaaray uu yiri dad walba meeshaas ka soo xirteen, kuwa halka degan iyo kuwa ka sheeyo soo mari doonaba. nebigu wuxuu hunna lahunna dadka meesha degan ayay miiqaad u tahay, waliman ataa calayhinna iyo qof kasta oo soo mara. marka mawaaqiida shanta ah waa inuu qof ka soo xirto. haddii uu soo dhaafo isagoo muxrim ahayn dhiig ayaa ku waajibaya. dadka Soomaaliya ka yimaada dhanka Yemen meesha Yalamlam la yiraahdo ayay soo marayaan. dadka Yurub ka yimaada waxay soo marayaan Juhfa oo hadda Raabiq loo yaqaan waa kada. marka qofku waxa u banaan inta aan la soo gaarin inuu soo xarmado waa u banaan tahay. markuu iyada la siman yahay waa u banaan tahay inuu xarmado laakiin waxa la diiday inaad soo dhaaftid. dadka ka sokeeya meesha guryahooda ka soo xarmanayaan, dadka meelahaas nabigu uu sheegay ka sokeeya meesha gurigooda ka soo xarmanayaan. dadka reer Maka ah iyagu marka ay xarmanayaan waa inay xilliga u baahan. xilligu waxa weeyaan xaramka xuduudiisa ay ka baxaan weey, xuduudda xaramkiisa ay ka baxaan. walidaalika dadka marka raba mar labaad inay umreystaan intay marka hore ay miiqaadka ka soo umreysteen oo ay umreystaan oo raba mar labaad inay umreystaan waa inay u baxaan tanciim meel la yiraahdo oo meesha ugu dhow xilliga ama xaramka xuduudiisa ka baxsan ah. markaas kadib markaad miiqaadka ka soo xarmatid soo niyeysatid muxrim baa tahay, waxyaalaha aan sheegaa mamnuuc ka ah. markaas kadib waa raggu talbiyada kor u qaadayaan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. dumarkuna hoos bay u dhahayaan. kadib markii ay yimaadaan beydka ilaahay ay arkaan kacbada ay joojinayaan. hadday hoteelkooda tagaan waa sunna in la qubaysto markii Maka la yimaado, laakiin khasab ma lagu suuqaysan khasab maahan. kadib waxa ku bilaabmaya ruknigii labaad oo ahaa tawaafka beydka kacbada in lagu tawaafo. tawaafku wuxuu ka bilaabmayaa xajar aswadka meesha ku aadan. sacuudigu waxa ay ku xireen oo aad arki doontaa gacantaada midig baad fiirinaysaa, waxaad arki doontaa nal weyn oo cagaar ah. nalkaas waagi hore diilin buu ahaa, dadka saasay u fiirinayeen bay isjiirayaan. markii dambe kor baa waxa loogu xiray nal cagaar ah oo dabaq walba laga arkayo. nalkaas cagaarka wuxuu ku aadan yahay xajar aswadka. markaad la siman tahay ayaad xajar aswadka ayaad u jeensan. xajar aswadku iyo kacbada bidixda ka haya waa u jeensanaysaa. bismillaahi allahu akbar baad dhahaysaa. markaa waxa ku bilowday shawdkii koowaad. shawdkaas ilaa haddana ka soo wareegaysid ذكرك إلهي يدعاء يتصبيح ذا يستغفارته يقرآنك وحي إلهي وكرنسيه أف صومالي أف عربي أف إلهي ودونا ياتكو آخرين إسا مركز تو حجر الأسود كميشكو أدناء سومرتيد شوط باقود ماضي مرلكي لواد بلاوسا بسم الله الله أكبر إلى تدوجر أكدم يسيد وحاصلنا هذه أي كوسورة شو حجر الأسود إن أد لوكتيد لكن هذه زحمة كتيرتو وحبضتك كل من أن نفط هذا حالسها جلين مركي لسوي ريجا يوحى كده ركني كلا ركني أما كعبة أفر تير بيلا تيرك كهر هي حجر الأسود كركن يمان له إسقى والله مسحة لكن لما دون كذا حجر الأسود كهدي أدون كويدين قعنتها كتها مكرتها قعنتها وادون كنيسة مركا كدي بتدوّر مركا لما يصير شوط وتكنيسة على بركة أو سنة وحن سؤال مامي إن أدوسق قبتيد باشر ضيع طواف كلامه صلاة باكدم بيسه إلهي وحي واتخذ من مقام إبراهيم مصلى إبراهيم مقام كيسوا ميشا مرايدة للسوء عجاه إبراهيم أي كتيران راتك إبراهيم أي كتيران halka xajar uu ku istaagay raadkiis baa ku jira halkaas meel ku aadan laakiin culimadu waxay dhahaan hadda maadaama khalqiga ilaahay ay bateen muslimiintii meel alla meeshii ku suurta gashay laba ragcad ku tuko ragcadda u horeysa qul yaa kaafiruun akhri faatiha qul yaa kaafiruun ragcadda ku xigtana waxaad akhrinaysaa alxamdu iyo haduu alla ku roon yahay qul huwa allahu ahad marka kadib zamzamka ina cabtid marka ducaysatid kadib zamzamka cab marka kadib waxaad u dhaqaaqaysaa as-safa wal marwa waa ruknigii saddexaad waxaad ka bilaabaysaa safa ayaa laga bilaabay nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu safa u sii dhawaa oo sii korayay ayuu xiyay nabda bima bada allah
ilaahay wuxuu ka bilaabay ina safa walmarwata min shacaa'ir illah markaa kadib nebigu wuxuu usoo jeestay markuu safo koray xoogaa koray ayuu kacbada usoo jeestay markuu usoo jeestayna 3 jeerba wuxuu yidhi allahu akbar allahu akbar allahu akbar kadib aayaddaasuu akhriyay ina safa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waman tatawaca khayran faina allaha shaakirun caliim qofkii kaloo adkaar akhriya sidii adkaartuu nebigu akhriyay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونسر عبده وهزم الأحساب وحده انت سنبو أخي كدب نود دعايستي كدب نوح بلعبي إنه أدقى غدان كمروة انتو لحدا كسي جري ونبو سيد دعايساني وسيد ذكريني ميل دحو وحا جرته لبا جرين أما لما عالن أو نل أو وعقارة دحدودا ماشي قدنيدو إسماعيل هويس هاجر مركي أي buurta kale ay u socotay wiilka ay arki weyday ay dhaqaaqis xoog u dhaqaaqaysay halka waxa sunna ah in raggu ay rucleeyaan dumarku laakiin tartiib u socdaan waliba waxa Abdullah bin Mas'uud iyo qeyrkiis ka soo aroortay duco inay ku ducaysan jireen Allahumma ighfir warham innaka antal a'azzu al-akram marka kadib safo marka tagtidna shawd baa ku dhamaaday haddana waa sacyigi hal mid baa ku dhamaaday dadka qaar waxay u qabaan go iyo back inuu wan yahay ma aha googa aad aadid safo ka tagtid aad tagtid marwa mid baa ku dhamaaday haddana soo noqodka sidii oo kale ducadaada iska akhrisanaysaa ilaa marka dambe waa inay kuugu dhamaato marwa inay kuugu dhamaato way khalaas halka waxa kuugu dhamaaday 7 jeer saaciyigi marka waxa ku haray ragga waxa u banaan inay xiirtaan ama jirtaan waxaana fadli badan inay xiirtaan nabigu wixii Allahumma ighfir lil muhalliqin Allahumma ighfir lil muhalliqin Allahumma ighfir lil muhalliqin 3 jeer markii afraadna wixii wal muqassirin dumarku laakiin iyagu way gaabinayaan mas xiiranayaan timahooda intay laba u qaybiyaan qaybood ayay farta ayay saa ugu laabayaan inta fartu ay ku laabanto ayay gooyaan dhanka kalena sidoo kale fartay saa ugu laabayaan markaas ay gooynayaan maarag halka marka inta aad samaysid xalaal baa tahay wax kasta oo ku banaana markii hore ayaa ku banaan intaas ayaa weeya ahkaamta umrada waxa ku soo arooray fadli aad u fara badan nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam in umradu ay dunuubta dhaafto al-umratu ila al-umra kafara buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam dunuubta ay kafaara ka tahay dabcan culimadu waxay dhaheen waa saqaa'irta ama dunuubta waaweyn ee waxay u baahan yihiin tawba nasuux bay u baahan yihiin saas oo kale nabiga xadiis waxa ka sugnaaday inay faqriga ay nafiso sida ma aragtay dabku oo dahabka iyo wanafiyo waxyaalaha xun ما aragtay qofkii umraysta ilaahay risqi xalaal ayuu siiya saas oo kale nabigu wuxuu sheegay siiba bisha ramadaan qofkii umraysta kal hajja riwaayadkana waxay ahayd sidii xaj maci aniga leeyla xajiyo kale ajarkeed ayuu qofku helaya saas oo kale qofku waa dayfullah martibu ilaahay u yahay ajar badan buu leeyahay marka qofkii kara waa inuu soo umraysto xukunkeeduna waa waajib sida jumhuurul ulama ay qabaan عمرك مر إن تسوع عمري ستيد هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته